Dad badan ayaa isku taxallujiya in ay kasbadaan qalbiga qofka ay jecel yihiin iyagoona u eegaynin marxaladaha ku habboon ee qofka lagu tashkiilin karo ama lagu soo jiidan karo, waxayna la kulmaan inta badan guuldarro, waxaana ugu wacan xilliyada ay soo gudbinayaan dareenkooda oo aan munaasab ahayn. Haddaba maanta waxaan idiin wadaa qaababka ugu sahlan aad qof ugu beeri karto jacayl. Wac xilliyo gooni ah. Isku day inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla qofka aad doonaysid. Bini'aadamka ayaa ka siman in xilliyada hurdada ka hor qofka qalbigiisu fikiro, wuxuuna ka fikiraa hadalladii ugu dambeeyay ee idin dhex maray. Qofka ayaa bilaabay inuu fikiro, fikir badan ayaa marka dambe isku beddela saameyn jacayl, waana wax la hubo inaad kasban doonto qalbiga qofka. Ku dadaal inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla. Xilliyada firaaqada, ha isku dayin inaad kula kulanto qofka aad doonayso meel buuq badan ama dadku ay ku badan yihiin. Isku day inaad qofka kula kulanto meel cidla ama jawi degan, taas oo labadiina idiin saamaxaysa in aad isdhaafsataan aragtidiina. Jawiga cidlada ah wuxuu ka qayb qaadanayaa inaad qofka qalbigiisa gaarsiiso dareenkaaga, halka jawiga buuqa sita uu kaa nusqaamin doono inaad gudbiso dareenkaaga. Ha baran marka hore asxaabtiisa ama asxaabteeda. Marka aad doonayso in aad qof barato, ha isku murjin inaad barato marka hore qofka aad doonayso asxaabtiisa. Waxaa ka imaan kara shaki ama in uu qofku ka baqo wixii idin dhex maray in uu ogaado qofka kale.